الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan ku jirnay walaalayaal barnaamijkii Nuurul Cilmi litaqwiyati huwiyati almuslim waa iftiinka cilmiga ee xoojinaya qofka muslimka shakhsiyadiisa. qofka muslimka shakhsiyadiisa iyo jiritaankiisa iyo dadnimadiisu waxay u baahan tahay inuu xoojiyo. haddii kale waxaa laga yaabaa inuu ku milmo adduunka waxyaalo badan oo jira oo diinkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo wanaagii badnaa uu lahaa qofka muslimka uu ka fogaado. taasina khasaaro weeyaan adduun iyo aakhiraba. barnaamijkan marka waxaa loogu talagalay shakhsiyadda in lagu xoojiyo iyadoo loo marayo cilmiga sharciga ah, waxyigii Allah subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey iyo cilmiga lagala soo baxay. waxaan ku jirnay mustawihii labaad kitaabkii afraad ee tarhiibul quluub bidikri adraari dhunuub, qalbiyada in la cabsi geliyo iyadoo loo sheegayo dhibaatooyinka dembiyada ka dhasha. marka in qofka la waaniyo oo wax loo sheegana waa shay asaasi ah oo Allah subxaanahu wa tacaala quraanka uu ku tilmaamay wadakir fa ina dhikra tanfacu almu'miniin. tadkiirku waa xasuusin qofka marka in la xasuusiyo waajibaadka saaran iyo waxyaalaha muxaramaadka ee la doonayo inuu iska ilaaliyo mu'miniinta ay anfacaysa buu Allah leeyahay subxaanahu wa tacaala. marka xasuusintaas iyo tadkiirkaas baan ku jirnay. waxaan ka soo sheekaynay dembiyada waaweyn ee qatliga iyo zinada iyo liwaadkii ay ka mid yihiin. waxaan ku jirnay liwaadka iyo ka hadalkiisa oo isagu ah arrin hadda adduunka ku badan. sheegiisuna ma fiicno, waa wax aad u fool xun, laakiin waa xaqiiqo jirta oo in wax la isaga sheego ay laazim tahay. واللواط بأنواعه يحدث الهم والغم. liwaadku noocyadiisa kala duwan, ama ha noqdo nin iyo nin ama haweentii iyo wixii la mid ah, noocyadiisa kala duwan wuxuu keenaa hami iyo murugo, yani qofka inuu welwel iyo walbahaar uu ku rido iyo inuu murugaysan yahay mar walba. walmahaanata walxaqaara, liidnaan iyo xaqirnaan buu keenaa. wax liita qofku inuu noqdo oo xaqiran oo ilaahay agtii iyo dadka agtoodaba wax liita ah. wasdiraa'a annaasi lisaaxibihi, dadku inay yasaan qofka ficilkaa sameeya. wastisghaarahum lahu, inay liidaan oo ay yasaan ama ay xaqiraan. wayurithu annufrata waatabaaghuda bayna alfaacili waalmafcuul, wuxuu keenaa kala didid iyo isnecbaasho dhex marta kii sameeye iyo kii lagu sameeyey. waa markii dabcan fitradii ay wax baaqi ka yihiin. waxun fitradii bani aadamnimada iyo insaaninimadu haddii waxun ay baaqi ka yihiin oo xishoodkii waxun ay ka harsan yihiin, markaas bay kala cararayaan oo ay kala fogaanayaan oo isnacayaan. ama fitradii haddii ay dhimatay oo xishoodkii ay u dhammaatay, waxaa laga yaabaa caadi inuu la noqdo oo waan isqabnaaba ay la soo taagnaadaano ay yidhaahdaan innaga guri ayaan wada dhaqaynaa. wayudlimu alqalba wayatmisu nuurahu, qalbiga ayuu mugdi ka dhigaa, iftiinkiisiina wuu tirtiraa. wayufsidu طabca alfaacili waalmafcuuli fasaadan, wuxuu xumeeyaa oo fasahaadiyaa dabeecadda kan sameeyey iyo kan lagu sameeyaba. dabeecaddiisu wuu bedelaya. fayantakisu qalbuhu, waxaa rogmaya qalbigiisa wa khuluquhu iyo dhaqankiisa. qalbigiisu qalbi rogan buu noqonayaa, gedisan. dhaqankiisii dabeecaddiisina mid gedisan bay noqonaysaa. wayafsudu xaaluhu wa camaluhu wa kalaamuhu bigayri ikhtiyaarihi, waxaa xumaanaya oo fasahaadaya qofka xaalkiisa iyo camalkiisa iyo hadalkiisa iyo kulli way xumaanayaan oo way isbedelayaan ikhtiyaar la'aantii, isagoo aan u qasdin xataa, oo isagoo xumay isle ay iska xumaanayaanba, oo arrinkaas baa keenaya. wayastatiibu alkhabiitha min alacmaali walhay-aat, wuxuu wanaagsanayaa oo wax wanaagsan u arkayaa wixii foosha xumaa ee ama ficil la ahaa ama qaabab ah. wax walboo xumaa oo khabiith dadku ay u arkayeen oo la fool xumaa, isaga shay wanaagsan buu la noqonaya.
ficil walbo xumaa iyo qaab walba iyo suurad walbo xumayd isaga way la wanaagsanaanaysaa. ثم لا يرجى صلاح هذا كدبنا الرجال لما قبو قفكاس إنه صالح نقضه مد وناكسن إنه نقضه هذا الكيسو وناكسن يهايو فعل كيسو وناكسن يهايو دقن كيسو وناكسن يهايو دين كيسو وناكسن إنه نقضه الرجال لما قبو إلا أن يشاء الله بتوبة النصوح إلا إلهي إنه دونه وهو فجي قفك توبة خالصة إنه لي ماذا معه وهو لقى توبة كيني كرا دنبي أن لقى توبة كيني كرا المجر وقفك إنتو نولي شركي أقوي الدنبي ده isagana in laga toobad keena way furanta. qoladii camalkan bilowday ee qowm luudna nabiyullaahi luud waa kii kala hadlay inay dambiga ka tagaan oo ilaahay u toobad keenaan. hadday ka toobad keen lahaayeen ilaahay wuu ka aqbali lahaa. marka toobadu way furantaa laakiin qofka rajo weyn lagama qabo. wa aslu hada annahu yudhibu alxayaa jumlatan intaan laga sheegay waxa asal u ah ficilkaasi xishoodkii buu tagsiinayaa gebi ahaanba. xishoodkii buu qofka ka baabi'inaya. walxayaau xayaatu lquluub xishoodkuna waa noloshii qalbiyada. xishoodku waa shayga qofka qalbigiisu uu ku nool yahay. waidaa maata alqalbu istaxsana alqabiix haddii xishood la waayo qalbigii baa dhimanay. qalbigu markuu dhintana wuxuu wanaag u arkayaa shaygii foosha xuma. wastaqbaxa alxasan shaygii wanaagsanaana mid foolxun buu u arkaya. wajaahara bilwaqaaxati wuxuu bannaanka la imaanaya xishood daro. xishood darrada ayuu la jahraya bannaanka la imaanaya oo ficilkii xishood darrada ahaa iyo hadalkii xishood darrada ah midna iska ilaalin maayo. waxiina idin faqad istaxkama fasaaduhu markaana waa mar uu sal dhigtay fasahaadkiisu waqtaraba halaakuhu halaagiisiina uu dhowaaday. wa huwa aydan min akbari asbaabi zawaali nicam liwaadku wuxuu ka mid yahay asbaabta ugu waaweyn ee keenta nicmooyinka inay zuulaan. wa xuluuli niqam iyo masaa'ib inay yimaadaan. haddii zinada caadiga ayaba ka mid ahayd asbaabta keenta nicmadii ilaahay dadka inuu ka qaaday musiibo uu ku rido, liwaadka oo ka sii foolxun waxaan shaki lahayn inuu asbaabtaa ka mid yahay. wa ayu khayrin yurjaa fii xayaati cabdin khayrkee loo rajaynayaa nolosha qof qad xallat calayhi lacnatullah lacnadii ilaahay ay ku degtay. qofka camalkaa sameeya waa qof ilaahay uu lacnaday oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu lacnaday. marka qof lacnadaasi ay ku degtay oo ku dhacday khayrka noloshiisa loo rajaynaya muxuu yahay. wa acrada allahu canhu qof ilaahay uu ka jeestay falam yandur ilayhi oo uusan fiirin nadara raxmatin fiira naxariiseed ilaahay uusan fiirin. ilaahay ma fiirina waa nagi soo marnay. وفي اللواط من المفاسد ما لا يحصر لواطك حق مفاسد وحا كجر وحا لكوبي كرين. ولذلك كان أعظم المعاصي بعد القتل سيدا دراديد باوحو النقضي دنبيا مدك أقوين دلك مركا لغسو قدبو. دنبيا أقوين وشركي دلك أيا كحيقة لواطك كحيقة. زينادي عادي هذه سيغا كفولحو وكوين. وربما يكون أعظم مفسدة من القتل وحان دعي كرتبة حتى دلك إنه كم مفسدة وينادو. ولا أن يقتل المفعول به قفك وحال لغو سميني إن لدلو خير له من أن يؤتى أي أغرون أغا خير بدن إن وحا لغو سمي يعني اللي وحا إن لغو سمي ولا فولو وحا أغرون إن لدلو. وقد صرح الفقهاء بأن الزنا لا يباح بالإكراه culamadii fiqiga garanaysana waxay cadeeyeen zinadu inaysan xalaal ku noqon qasab. qofka zina laguma qasbi karo. فيحرم على المرأة الاستسلام لمن صال عليها ليزني بها haweenta waxaa xaaraanka in isu dhiibto qofka soo weerara si uu uga zinaysto. wain khaafat calaa nafsiha xataa haddii nafteeda u cabsanayso waa lagu dilaya hadday isleedaha xataa inay isu dhiibto waaye waan ogolahay iga zinayso ay tiraahdo ma banaano. marka qasabku zinada ma banneeyo marnaba. ninkiina uma bannaynayo haweentiina uma bannaynayo. walliwaatu afxashu min azina liwaadkuna waa ka foolxun yahay waa ka liitaa zinadii. marka zinadiiba haddii aysan qasab ku bannaanayn liwaadkuna qasab kuma bannaano. marka waa lagu dilayaa haddii kale waxaas waa in lagugu sameeyo waa inuu diido uu yidhahdo hallay dilo ma ogoli waxa in lagu sameeyo waa inuu jihaado. ويجوز دفع المكره وحا بنان مدك
qofka waxaa ku qasbaya in uu iska difaaco bikulli ma amkana wax walbo suurtagal uu isaga difaaco. qofka haweentii soo weeraray si uu uga zinayso way iska difaacaysaa bikulli ma amkan. ninkii rag ahaa la soo weeraray si waxa loogu sameeyay isaguna wuu isdifaacaya bikulli ma amkana wax walbo suurtagal uu isku difaacaya. falaw addaa daalika arrinka difaacaasi hadduu gaarsiiyo ilaa qatlihi midkii waxaa doonaya ee weerarka ahaa in la dilo lam yajib shay-un waxba ma waajibayaan, waxba laguma laha, hadar weeyaan, dhiiggiisii laguma laha. waman istaslama lilmukrihi qofka isu dhiiba midkaa qasbay athima wuu dambaabay wacasaa caasi buu noqday, ilaahay buu caasiyey. wain saqata alxaddu canhu xadkii haba ka dhici oo gabadhii haddii maalan zinadii lagu qasbo ay isdhiibto qasabkaa dartii xaddu zina lagu oogi maayo laakiin way dambaawday. ninkaa raggaana haddii fulay uu yahay isaguna uu isdhiibo wuu dambaabay, ilaahayna wuu ku caasiyey laakiin xadkii dilka ahaa lagu oogi maayo. lianna xaqa allaahi tacaala yasqutu bishubha maxaa yeele xaqi ilaahay shubhada wuu ku dhacaya. wayabqa tacziiru laakiin tacziir baa haraysa. haweentii iyadu isdhiibtay in la tacziiro ciqaab bay mudan tahay. ninkii isaguna faaxishada isu dhiibay oo la qasbay weeyaane isna waa la tacziiraya wuuna dambaabay. idaa habata haada arrinkan hadduu sugnaaday faqad ajmaca almuslimuun muslimiintu waxay isku raaceen calaa anna talawuta alinsaani bimamluukihi ka talawutihi bimamluuki gayrihi. qofku inuu addoonka isagu uu leeyahay, addoonka ragga ah ee isagu uu leeyahay inuu liwaad ku sameeya inay la mid tahay qof kale addoon uu leeyahay inuu ku sameeyo. fi lithmi waalxukmi xagga dembiga iyo xukunkii dilka ahaa inay isku mid ka yihiin bay isku raaceen. waman zacama anna talawuta alinsaani bimamluukihi jaa'izun qofka yidhaahda ee sheegta in qofku mamluukiisii addoonkii uu milkiga u lahaa liwaad inuu ku sameeyo ay bannaan tahay. waxtaja calaa daalika arrinkaasna u xujaysta biqowlihi tacaala ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa innahum gayru maluumiin. markii ilaahay farjiga xifdigiisa uu ka hadlay wuxuu yidhi ragga xaasaskooda iyo wixii milki ay u leeyihiin waa loo ogol yahayo taa lagu eedayn maayo. aw maa malakat aymaanuhum marka waa gabadhii addoonta ahayda ee milkiga uu lahaa wuu u tegi karaa bimilki lyamiin. haddii mar qof uu yidhaahdo maa malakat aymaanuhum wiilashiina way soo gelayaan, wiilkii addoonka ahaayo uu lahaana waa u tegi karaa. hadduu sidaa yidhaahdo fa huwa kaafirun bidaalika arrinkaas mid ku gaaloobaya weya. yustataabu kamaa yustataabu lmurtadu tooba ayaa laga dalbaya. dowladdii baa soo qabanaysa toobadkeen baa la leeyahay sida qofka ridooba looga tooba dalbi jiray. fa in taaba hadduu toobad keeno waa sidaasoo waa hagaag. wa ilaa duribat cunuqu haddii kale qoorta lagu dhifanaya waa la dilaya. marka waxaa laga yaabaa gaalada qaar iyo dadka qaar ee wareersan iyo inay shubahaad kugu keenaan way ku yidhahdaan ilaahay wuxuu yidhi ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum. aayadda waxaa ka muuqata addoonkii milkiga loo lahaa in loo tegi karo ma jirto taas. aayaddu ka hadli mayso addoon. qofka yidhahda addoon bay ka hadlaysaa wuu soo gelayaan wuuba ku gaaloobaya. walaa yajuusu alliwaatu fi ljanna sidoo kale jannada liwaadku kuma bannaana ma dhacayso. lianna allaha tacaala samaahu faaxishatan maxaa yeele ilaahay faaxisho ayuu ku magacaabay liwaadka. wa samaahu khabiithan khabiithna wuu ku magacaabay wax xun inuu yahay. faqaala allah wuxuu yidhi kaanat tacmalu lkhabaa'itha qaryadii khabaa'ithta waxyaalaha xun samay jirtay. khabaa'ithta waxaa ka mid a liwaadka ay samaynayeen. waljannatu munazahatun can alfawaaxishi waalkhabaa'ithi jannaduna waa mid laga nasahay oo laga nadiifiyey waxyaalaha foosha xun iyo khabaa'ithta waxyaalaha xun. walaa tadkhulu fii qowlihi tacaala fawaaxishta iyo khabaa'ithtu ma soo gelayaan allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa uu yidhi walakum fiiha maa tashtahii anfusukum jannada dhexdeeda waxaad ku leedihiin wax walboo nafsadiinnu ay ishtahayso, wax walboo naftiinnu ay jecesha. marka dadka qaar baa iyaguna aayaddaasoo kale laga yaabo inay shubaka ugu keenaan oo yidhaahdaan liwaadku jannada dhexdeeda wuu jiraa sababtoo ilaahay wuxuu yidhi walakum fiiha maa tashtahii anfusukum. dadka qaarna waa jecel yihiin sax maaha marka. bal laa yakuunu alliwaatu mima yashtahiihi ahluljanna liwaadku kama mid ahan ahlujannuhu waxyaalaha ay ishtahaynayaan ay jeclaanayaan. sababtoo ah lianna aljannata laa yadkhuluhaa ilaa nafsun tayiba jannada ma gelayo ilaa naf wanaagsan maahan. nafsad tayiba ah unbaa jannada gelaysa. nafsad tayiba unbaa jannada gelaysa.
نفط يدو لوادك جعلنا نفسد خبيثة ويد ماها نفس طيبة. وكذلك كل ما كان حراما في جميع الأديان وحال لوادك الله ميدا شيء والديمها أو لن حرام كوها جنة دحديد حلال كو نقون ماي كالزنا وزنا دي أوكل ونكاح الأمهات هو يوينك إلا تقو والكذب إيا بانتي وحاس يعني ديمه أو لن حرام بيكو أهاي marka jannada waa ku xalaal ma noqonaya بخلاف الخمر ونحوها خمرد وحي لمد باتا كدوان وخمر حتى دينكينا مربو حلالها وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم با عبتي marka في جميع الاديان حرام ما وسن هين حالد وحي حرام اها دنا كدب لا حرمay way كدوين وحي وليgood marnaba aan xalaal noqon ولأن أهل الجنة لا يرفع عنهم الحياء وحكلو كتوسينaysa liwaad inuusan jannada ka jirin ahlu jannaha xishoodka laga qaadi maayo ولذلك يستتر أهلها عند الوقاع سيدا دراديد با dadka ahlu jannaha markay jimaac sameeyaan way isasturayaan oo banaanka isku fuuli maayaan ولا يظهر أهل الرجل لغيره نكان أهل كيسا حور عينتيسا إيو حاسسكيسا جنادو muuqan maayaan kuwii kale oo ka asturayin guryo ay leeyihiin khaas u ayag marka xishoodkii laga qaadi maayo qofka liwaad sameynayna waa qof xishoodkii laga qaado qalbigiisu u dhinta sidaan soo marnay قيل إن الله يعصم أهل الجنة من شهوة محال أو مخالف للحكمة وعلى أهل الجنة إلهي وحو كدوريا شيء مستحيل إنay damcaan شيء مستحيل inay damcaan waxaan dhici karin macnaha inay ijtihayaan ilaahay baaba ka xifdinay ama shay xikmadii ilaahay khilaafsan oo munaasib aan u ahayn oo aan wanaagsanayn inay damcaan oo ijtihayaan ilaahay baa ka dhowray marka liwaadkuna wuxuu ka mid yahay al-mukhalif lil-hikma wa wax xikmadii khilaafsan weeyaan ama al-wildan fi al-jannati fahum lil-khidmati la lish-shahwa wiilasha yaryar ee jannada ku sugan ee ilaahay uu ka sheekeeyay waxaa loogu talagalay adeeg ee maaha dareen looguma talagelin dareen iyo isticmaal looguma talagelin qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi yatuufu calayhim waxaa ku dawaafayo dul wareegaya dadkii ahlu jannaha ah wildaanun wiilal mukhalladuuna la waariyayo wiilnimada iyo barbaarnimada iyo dhallinyaranimada iyo qurucdeeda baaqi ku ahaanaya biakwaabin waxay la wareegayaan koobab wa abaariiqa iyo koobab dhiga leh koobab aan dhiga lahayn iyo kuwo dhiga leh ay la wareegayaan wax wanaagsan oo macaan ay ku jiraan wa ka'sin iyo koob min maciinin koob khamraaho min maciinin il burqanaysa laga soo daray oo webi dhan oo khamraa ayaa jira jannada oo macaan marka yatuufu calayhim wildaanu mukhalladuun marka leeyahay wildaantaas adeeg weeyaan waxa loogu talagalay ma ahan inay sida xaasaskii oo kale noqonayaan oo ahlu janno ay isticmaalayaan maaha subxaanallah tama marka quruxdooda laga sheekaynayo wildaantaasna waxaa looga sheekaynayaa jannadu siday u qurxoon tahay oo gurigaba quruxdiisa waa laga sheekeeya alaabta qofku uu isticmaalay quruxdooda waa laga sheekeeya kuwii u adeegaya quruxdoodana waa laga sheekeynaya adduunya dhammaystiran waa nolol dhammaystiran weeyaan baa laga wada lagama wado inay isticmaalayaan aayadana marka in shubha lagaga keeno baa dhici karta saas baa loo sheegaya قال الآجري رحمه الله الإمام الآجري وحير فاتقوا الله يا معشر المسلمين إلهي كعب صدى مسلمين إلهي كعب صدى عذاب كيسيس كإلالي ولا تعتدوا بفروجكم إلى ما لا يحل لكم فرجيدي إنها أقود بننا وحان حلال إذين أهين انتي حلاش أهيد وكليكو أكاد واعلموا أن عقوبة من عمل بعمل قوم لوط وحد واتان إن يتها عقوبة قفك سمي عمل كي قوم لوط اللعنة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لعنتك إيمان يسأل الله يا نبي صلى الله عليه وسلم وقف إلهي يقول لعنضي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لعنضي مع شدة العقوبة في الدنيا والفضيحة يضو تائي لجرته عقوبة درن أو الدنيا ده وإلا الدليل يعرق لو دليل سيدان صامرنا يقفك عيب يا فضيحة إليكوته وما أعد له في الآخرة من العذاب آخر قديه وحلو دياري عذاب أعظم أيانا كوين متك أدوك إن لم يتوب دوسا توبتك قال رحمه الله فإن قال قائل هدي قف يراده فكل من أتى غلاما قف والبنين والبو ويل أتغى أو رجل أمان أتغى فهو لوطي نوجب عليه الرجم ما وحا لنا واللوطي والرجم يجب أن كوا جبيننا رجحين لقدله
فإني أقول وحن لا يهبو يري أجري إنما اللوطي الذي يجب عليه الرجم كان لوطيغا الرجم ودغخين لغو ديلا اي واجبيسو هو الذي يأتيه في الدبر ومدك الدبر اوغا تغوي فإن أتاه في غير الدبر هدو اوغا تغو ميلان دبر كاهي oo si kale uu jirkiisa ugu raaxaysto isagoo meeshaas aan ka isticmaalin فهذا من الفساق كاس wuxuu ka mid yahay faasiqiinta uu ka mid yahay dambi weyn buu isaga laftirkiisu leeyimi يجب على الإمام أن يعاقبهما إمام كان وحاكو واجب يقفك مدحضة لبضاس إنه عقابه العقوبة الشديدة عقوبة درن إنه عقابه إنه تعزيره أو حبس قليه أما أو قراعه هي واجب وضد عقاب مدن لكن رجم مقار يعني مرة دي الوطء في الدبر وصندع وقال رحمه الله في اللوطي أجر لوطي كيري وكان مثله لا يصلى خلفه إساقو كله كذاشيسا لغو تكن مايو هدوبة تكدوية ولا تقبل شهادته مرقاتي سنة الأقبال مايو ولا يؤتمن على أمانة لغو آمني مايو أمانة الدنيا يمدين من لغو آمني مايو وقف هدو علم لغا قاتب ما نقون كرو قف مثلا شقالة لغا دكتو ما لغو آمننا ما نقون كرو ولا يجالس ما لا فريسانيو ولا يسلم عليه مل السلام حتى يتوب إلى كتوبتك وإن كان صبيا لا يعقل هدويه عرور أن وحفهمينا زجر عن ذلك أرنكا ولقى عنانية وقيل له وحال لي يقول له شيء هذا لا يحل وحاني حلال معها ونهي عنه وأنا لقى الريبية ولا بريا المهن أصلا بمركه هور إن لبرا يا وناكسن حتى ذن أدونكي المهن هذا وحاس وكلا الشيء أدوكو waxaa dhici karta meelo kale in ay ka soo galaan oo adduunka hadda ilmi inay telefoon fiirsadaan way badanta telefonkii ficilkii faaxishadii la sameeyay laftirkeedii laga yaabo inuu fiirsado hadhowna uu yiraahdo waxaan waa wax caadi marka inaad u sheegto tiraahdo wada uga sheekayso farjiga in la ilaaliyo sharcigu inuu amray iyo wax laga ilaalinayo zinadii in laga ilaalinayo liwaadkii in laga ilaalinayo wa in kana muraahiqan adabahu al-imam haddii caruur qaangaar ku dhawaada uu yahana إمامكي أيا إدبينيا ولا تعزيريا وتوعده بعظيم من العقاب وحقوق دينيا عقاب وين إن هو عاود إلى مثل هذه الحالة هدو الله أبطو حالة دا سوكل مركا هدو مدير أهانا حوغا ولا عنانا ولا قعلينيا مدرون هدو يهو قانقار كدونا ولا إدبينيا ولا قراعيا ونهاه وحوكر ريبيا عن صحبة الفساق فاسقين تلسعو شدود الذين يميلون كوا يقول لي حنيا إلى مباشرة الغلمان ويلش يرير إن لا باشران كوا يقول لي حنيا دبيعدو سداتا إنه لا صاحبه أيو كريبيا marka imaamkii oo kaliya taas uma taali waalidkii iyo mas'uuliyiintii iyo macallimiintii iyo dadka wanaaga ka taliyo dhan bay u taalaa wa ala al-imaami qofka madaxda waxa waajib ku ah an yanha al-ghilmana wiilasha yaryar inuu ka reebo أن يظهروا إني موجيان زي الفساق فاسقين تا مقال كود إني موجيان زي وحال لها قاب كقفك وموقنيو يلبسك وحرنيو أو كلي تنتا أو كلي وحيراس بالبدا وتنتان هذا لحيرنيو قفك ولا إيمانيو ووحلو يقانم ودمد قار كوا سداس أو كلاه يلا فولو دبدا لغا فولو علامة إليهم وين تتكماشان dhinaca dhafoorada xiiraya ee farta u sameynay waxa hal far markay u sameysanta hal nin baa fuula ayaa loola jeedaa laba markay u sameysanta laba farood ay u xiiran tahana laba fuusha laga wada waa reer galbeedka dadkii ka yimid baa sidaa noo sheegay marka ziyiga calaamadii iyo muuqaalkii ay lahaayeen kuwa sidaasi waa in laga reebo sidoo kale surweelkan dabada bartankeeda barida bartankeeda ka xirma wuxuu ku yimid baa asal ahaan kuwa iyagu maftuux iska ah firi ahaayo ninkii raba uu fuulay ayaa surweelka on sidaa isaga furay jiray marka kii soo gaaraba uu iska fuulaya dabadiisu maftuux bay ah adiga marka qof muslima subhanallah oo qiimo leh inaad tiraahdo dabadeedu waa firi sidaas muuqaalkii ah aad yeelato waa wax fool xumo marka ilmihii baa laga hadlay sheekhu ilmihii buu ka hadlaya dadkii waaweynaaba u baahan hadda in laga reebo faasiqiinta muuqaalkoodii oo kale inay yeeshaan marka madaxweynihii iyo qofkii meesha ka talinaya iyo ciddii iyadu tala leh iyo mas'uuliyad ay saaran tahay oo dhan waalidkii iyo sheekhi iyo macallinkii iyo dariskii iyo dhammaan waa inay ka reebaan dadka
walaa yasxabu axadan waa inaysan ilmuhu wiilasha yareer aysan la saaxiibin oo la socan axadan qofna miman yushaaru ilayhi oo ka mida kuwa lagu tilmaamo annahu yatacaradu lilghilmaan wiilasha inuu u banbaxo oo wax ku sameeyo kuwa lagu maleeyo ee lagu tilmaamo uu ka mid yahay inuu ka celiyo. marka ilmihii in la waardiyeeyo weyaan macnaheedu, ilmahaaga waa inaad waardiyeyso. fitnadaasina hadda way badan tahay ee ogow. wakada yajibu cala alaabaa'i sidoo kale aabbayaasha waxaa ku waajibaya an yanhaw awlaadahum awlaadooda inay ka reebaan can ziyi lfusaaqi faasiqiinta muuqaalkooda inay ka reebaan, wa can suxbati lfusaaqi faasiqiinta la socodkoodana inay ka reebaan. wakada sidoo kale yanbaqii lirajul ninka waxa u habboon an yudfaca in laga celiyo can mujaalasati alghulaami alamrad la fariisashada wiilka yar ee garku uusan u soo bixin khawfan calaa diinihi cabsi looga cabsanayo diinkiisa darti. macnaa nin walba oo ragihi isagu waa inuu iska ilaaliyo oo wiil yaroo dhallinyaro ah oo maaragtay curdan ah oo dhabankiisu uu dhalaalayo inuu la fariisto ama uu la socdo ama uu guri la seexday wixii laba inuu iska ilaaliyo, sababtoo dumarkii buu shabahaa, dumarkii ayuu shabahaa. qaala nawowiy raximahullah, alimaam nawowi wuxuu yidhi faina annadara ila alamradi alxasan, amrad waxaa layidhaha wiilka dhallinyarada garku uusan u soo bixin ee alxasani quruxda badan kaa in la fiiriya min gayri xaajatin xaaja la-aan in la fiiriyo xaraamun xaaraan weyaan. inuu iska fiiriyo yani isagoo fiirintiisa u begay uu iska fiiriyo xaaraan weyaan. sawaaءun kaana bishahwatin aw bigayriha, waxaa isku mida fiirintaasi in dareen uu la socdo iyo inuusan la socon, shahwo inay la socto. shahwada waxaa laga wadaa shahwadii faaxishada hadda maba ahane, taas waa mid aad u weyn, laakiin waxaa dareenkan hadda loola jeedaa fiirintiisa inuu u begayo, waa inuu fiiriyo oo isha uu ku sii hayo ayuu u begaya. ama taasi ha jirto ama yaysan jirin, waa inuusan fiirin marba xaaja haddaysan jirin. sawaaءun amina alfitnata aw lam ya'manha, ama fitnaha ka aamin noqdo qofkaa fiirinaya ama yuusan ka aamin noqon, oo caruurkaas aniga xumaan inaan ka damco aamin baan ka ahay, ku fidnoobi maayo, ama aamin ka ahaw ama ha ka ahaan, ha fiirinba. hada huwa almadhab asaxiixu almukhtaaru cinda alculamaa, kan ayaa ah madhabka raajixa ah ee culammada muxaqiqiinta ay doorteen, sida alimaam nawowi leeyahy. waqad nasa calaa taxriimihi alimaamu shaaficiyu waman laa yuxsaa min alculamaa, in la fiiriyo wiilka amradka, wiilka yar ee quruxda badan in la fiiriyo xaaraan inay tahay waxaa cadeeya alimaamu shaafici iyo culamo kaloo aan la koobi karin. wa daliiluhu qowluhu tacaala, daliilkiisuna wuxuu yahay allah qowlkiisa uu yidhi qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim, mu'miniinta waxaad ku tiraahdaa aragyadooda ha laabeen. marka araggii kuwii laga laabay buu ka mid yahay ee lagu fidnoobay. waliannahu fii macna almar'ati, midda kale haweenta ayuu la macnaya, haweenta ayuu la macnaya. bal rubamaa kaana bacduhum aw kathiiru minhum, bal waxaa dhici karta wiilasha qaar ka mid ama in badan oo ka mid ihi axsana min kathiirin min annisaa, inay ka qurux badan yihiin in badanoo dumarka ka mida. wayutamakanu min asbaabi riibati fiihi, asbaabta tuhmada keentana waa loo makansanaya isaga, oo sida haweenta tuhmo ay uga timaado ee dadku ay uga ilaaliyaan ragga, ama qofku isaga ninka ragga uu isaga ilaaliyo, caruurkan ma imaanayso. marka asbaabtii tuhmada keenaysana way badan tahay. wayatasahalu min turuqi shari fii xaqihi, turuqdii wadooyinkii sharta caruurka xaggiisa waxaa ka sahlanaanaya maa laa yatasahalu fii xaqi almar'a, waxaan ka sahlanaanin xaggii haweenta. fakaana taxriimuhu awlaa, isaga in la xarimo fiirintiisa ayaaba awlaysan. wa aqaawiilu salafi fi tanfiiri minhum, hadallada salafka ee ku soo aroortay dadka in laga cayriyo looga digo caruurtaana aktharu min an tuxsaa, way ka badan tahay in la koobo, aad bay u fara badan tahay. marka macnaheedu ma aha in la tuhmayo dadkii waaweynaa, akhyaartii iyo maaragtay macallimiintii iyo wixii in la tuhmayo ma, laakiin waxaa loola jeeda in laga digtoonaado, in laga digo. maalan haddii dugsiga ama dadka aad la tacaamulayso wiilal iyo gabdhaba ay yihiin, labadaba isku si uga digtoonaa weeyaan, sida gabdhahaad isaga ilaalinayso wiilashana isaga ilaali. wa ama annadaru ilayhi, ama in la fiiriyo caruurka sidaa amradka ah ee qurxoon fii xaali albayci washiraa, beyc iyo shiraa markuu jiro oo isagaad wax ka gadanayso ama wax kaa gadanayo, inaad wejigiisa fiiriso. walakhdi walictaa, markii aad wax siinayso ama aad wax ka qaadanayso. watadbiibi watacliim, marka la daaweynayo ama wax la barayo in la fiiriyo. wanaxwiha, iyo meelaha wixii la mid aho
min mawaadici alxaaja meelaha xaajadu ay ku jirto fajaa'izu lidaruura kaas waa mid bannaan lidaruura lilxaaja xaajada darteed ayuuna u bannaaya laakin yaqtasiru naadiru laakiin kaa fiirinaya wuxuu ku gaabsanayaa calaa qadri alxaaja xaajada qadarkeedunbuu ku gaabsanaya walaa yudiimu nadara fiirintana ma daa'imayo min gayri daruuratin baahi la'aan wakadaa sidoo kale waxaa almucallimu mucallimka caruurka waxbaraya ee qur-aanka baraya ama iskoolka u dhiga ama diinka u bara ee waxbaraya qofka waxbaraya caruurka inamaa yubaaxu lahu waxaa loo banneeya oo keliya annadaru aladii yuxtaaju ilayhi fiirada loo baahan yaha oo keliya caruurkii maalan makhaarijtii xarfaha inuu ka soco markuu doonayo inuu fiiriyo uu ku qasbaya wejigiisa laakiin markii uusan u baahnayn inuu fiiriyo maaha aragga inuu ka laabo ayaa la doonaya taa waa inuu ku xisaabtamo wayaxrumu calayhim kullihim waxaa dadkii xaaraan ka ah dhammaantood fii kulli alaxwaali xaaladahaas oo dhan xataa kuwa xaajadu ay jirtay annadaru bishahwatin dareen inuu ku fiiriyo marka xaajadu ay jirto shahwo maaha wuxuu ku fiirinaya waa lilxaaja lishahwati maaha ama lishahwa iyadu mar walba xaaraan weeyaan walaa yakhtasu haada arrinkaani gaar kuma aha in annadaru bishahwa ay xaaraan tahay bilamradi amradkii gaar kuma ah amradka xasanka ee qurux badan isaga bishahwa iyo bigayri shahwaba lama fiiri karo taasaa khaas ku ah ama bishahwa markay jirto isaga khaas kuma ah in lagu fiiriyo bal yaxrumu calaa kulli mukallafin qof walbo qaangaara ee caqlila waxaa xaaraan ka ah annadaru bishahwatin dareen inuu ku fiiriyo ilaa kulli axadin qof walba ayaba xaaraanta inuu fiiriyo dareen uu ku fiiriyo rajulan kaana aw imra'atan nin ha noqdo ama haween ha noqoto maxraman kaanat ilmar'atu aw gayraha haweentaasi maxram ha u noqoto hooyadiisii walaashiisii eedadiisii habaryartiisii ama yaysan u noqon ila zawjata aw ilmamluukata ilaa xaaska ama gabadha uu adoonta milkiga ugu leeya maahan allatii yamliku listimtaaca biha taasoo milki ugu leeya inuu ku raaxayso labadaasunbaa loo ogolya kuwii farjigiisa loo ogolaa inuu jimaaco ayaa inuu dareen ku fiiriyana loo ogolya oo keliya inta kale looma ogola xataa qaala asxaabuna ilaa asxaabteennu yidhaahdeen yaxrumu annadaru bishahwatin ilaa maxaarimihi waxaa xaaraan ah dareen inuu ku fiiriyo gabdhaha maxaarimtiisa ka ukhtihi walaashiisoo kale iyo wa ummihi hooyadiisoo kale wallahu aclam walidaalika cawro ayay kala leeyihiin ninka iyo walaashiis iyo hooyadiis iyo gabadhiisa iyo eedadiis iyo habaryartiis cawro ayay kala leeyihiin cawradaas gabadhu inay asturato waajib weeyaan jirkeedana waa inaysan soo qurxino qaab yani raggii ay ku fidnoobayaan iyadoo jirkeedu u muuqdo waa inaysan walaalkeed iyo adeerkeed iyo abtigeed aysan ka soo horbixin oo maxaarimtu waa inay silaaliyaan iyo laftirkood waana soo marnay hore kitaabka laftirkiisaan ku soo marnay oo gabadhu waxaa jirta qaab ay ku soo baxdo ninkeeda hortiisa ay ugu soo baxdo inay mara khafiifa xirato ama mara ku dhegan inay xirato iyo wixii lamid qaabkaas oo kale waa inaysan walaalkeed iyo adeerkeed iyo wixii lamid hortooda aysan ugu soo bixin waa inay xishood leedahay waidaa xaruma annadaru falkhalwatu awlaa haddii la xarimay meel walboo la xarimo in la fiiriyo in lala cidloodaana waxay noqonaysaa min baabin awla xaaraan weyn caruurkii isagoo xataa keligii aan ahaynoo dad badan ay joogaan dad badan lagu dhex jiro inaad fiiriso ayaa haddii la diidan yahay inaad la cidlooto xaaraan weeyaan iyaduna fa innaha afxashu iyadaa ka foolxumo badan wa aqrabu ila almafsada mafsadadiina iyadaaba u dhow walmacna almakhuufi macnihii laga cabsanayay walmacna almakhuufu fi lmar'ati macnihii haweenta looga cabsanayana mawjuudun mid jooga weeyaan markii lalahaa haweenta yaan lala khalwoon yaan lala cidloon waxa laga cabsanaya waa faaxishadii bay ahay macnahaasi marka wuu jiraa hadda marka la fiiriyo ee caruurka iyo wixii lamid wayanbagii waxaa habboon an yaxdara inuu qofku ka digtoonaado min musaafaxati alamradi alxasan amradkaa qurxoon inuu gacanta geliyo wa mucaanaqati inuu laabta geliyo oo uu mucaanaqeeyo wayaxrumu bikulli xaalin mar walbana waxaa xaaraan ah taqbiiluhu inuu shumiyo ama inuu dhunkoodo iyadu xaaraan weyn sawaaء qadima min safarin aw la ama safara ka yimaada ma yuusan ka imaan walaa farqa bayna an yakuuna almuqabilu waalmuqabalu midka wax dhunkanaya iyo kan la dhunkanaya inay yihiin saalixayni aw faasiqayn laba saalixayn iyo laba faasiqayn farqi uma dhace mar walba waa xaaraan wayustathnaa min hada kan waxaa laga soo reebaya taqbiilu alwaalidi waalwaalidati wa naxwihima aabbaha iyo hooyada iyo labada wixii la mida min almaxaarim ee maxaarimtii ka mida
inay caruurkan dhunkoodaan calaa sabiili shafaqati naxariis ahaan inay u dhunkoodaan taas baa laga soo reebaya oo caruurkan waali aabihiis iyo hooyadiis iyo walaalkiis iyo walaashiis iyo abti iyo eeday kuwa la midka ah ee loo fahmayo qof walba arkaahay naxariistii qaraabanimo inuu u dhunkanayo taa waa la soo reebaya laakiin qof aanay shaqo isku lahayn inuu dhunkado lama ogola وعلى من رأى شيئا من هذه المنكرات المذكورة أو غيرها وحا واجب كوا قفك أركه منكرات كان لا شيء أما غير كيد أن ينهى عنه إنه كره يبضتك أو نهيه حسب الإمكان أود قدر كيد انتو أود إما باليد لمن قدر إما قعنت إنه مارة النهيه وكسولي منكر كعدي أوده أو باللسان أما عربك إنه كسولي لمن عجز عن اليد قفك قعنتي أودي وآية وقدر على اللسان لكن عربك أوده وإلا هدي لبدا منا أوسن أودين فلينكر بقلبه قلبه سحكو ينكره قلبه كنعو والله أعلم وقال الآجري رحمه الله الإمام الآجري وعير فإن قال قائل حديق في راده فإذا عرفنا من يعمل عمل قوم لوط هدان أقانه قف سمي عمل كي قوم لوط كيف يكون وصفهم عندنا تلمانتودو إياga أنك أكتنا سيدين نقونيسا يعني قف عمل كاسمي هدان أقانه أنك أكتنا منزلة أوجوغا يوحى سيدا ولا تعامل إن محيطة قيل له وحا لقول من عرفت من الناس قفك دوغاتو ضدك كمدا أن هذه صفته تنئني تلمانتي ستهي فإياك أن تعاشره إسكا إلال إن تلدقانتو إن نلال لو داكتو لدقانتو يعني أدل جوكتو نلال شا أدل داكتو إسكا إلال ولا تجالسه هلا فريسا ولا تصحبه هلا صاحبا وهلا صعا فإن كان ذا قرابة أو جارا هدو يهمد قرابة صاحبة أما الدرس أويهي فانصحه النصيحي وعرفه أغيسي قبيح ما هو عليه وحا وكسوغن يفول حمدو فإن أبى القبول منك هدو ديدو إنو كأقبل النصيحة فاهجره كهاجر وكفق ولا تسلم عليه هنا سلام حتى سلامتها سلام كفق وإن مرض هدو حنوصد وكان ممن يجب أن تعوده ونا كمد يادتك واجب كايدين بوقته وقرابة مثلا فعوده بوقه وانصحه النصيحة haddii aysan laazim walba inaad booqato isaga fogaa marka horeba laakiin qof ay laazim ahayd inaad booqato aadan huri karin hadduu yahay booqo una nasiixay waaclimhu ogeysii annaka in lam tatub ila allahi caza wajalla waroy haddii aadan ilaahay u toobad keenin wa aqamta calaa haadihi alfawaaxish ee aad ku nagaato foolxumooyinkan allatii anta muqiimun calayha ee adigu mid ku nag aad tahay lam nacudka fii maradika jiradaada hadda kadib kugu soo booqamayno ولم نسلم عليك منك سلامين وهجرناك وان كاهجروننا وكافغاننا وحذرناك وان كادكتوناننا وحذرنا منك وان كاقدقينا إخوانا ولاله ونهينا عن صحبتك الله صاحبي دادنا دادك وان كريبينا انتها صورا كله وكنت هديد وكعب سيقي لعله أن يتوب وحادعك ارتئروا طوبات كانوا إذا نصحتموه مركز النصيحة حيسان إن شاء الله ودي لها يدموه marka intaas oo dhan faaxishadaas fooshaxun ee hadda caalamka ku badan ayaa maaragtay looga hadlay arrinkaana ka hadalkiisu iyo jiritaankiisuba ma cusba oo ilaa zaman hore baa laga hadlayay al-Imaam al-Ajurri qarnigii afraad ee hijriyada ayuu noolaa qarnigii afraad ee hijriyada inagu hadda waxaan noolnaa qarnigii 15 marka 10 qarni ka hor ayuu noolaa arrinkan uu ka hadlayay qaabka loo daweynayo uu ka hadlay waa arrin marka ay muhiim tahay in laga hadlo oo dadkii maartay laga wacyigeliyo oo dadkii looga digo oo iyagu isaga digaan oo la fahamsiyo qofkii ay arkaan waxaas inuu sameeyo qaabka ay waajibka tahay in loola tacaamulo sida hadda Imaam al-Ajurri uu tilmaamay iyo sidoo kale cuquubada iyo maartay ciqaabta ka dhalanaysa uu mudan yahay qofkaas waxyaalaha oo dhan waa ahkaamtii sharciga ahayd ee in la fahmo loo baahnaa wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in